kusoo dhawaada barnaamijkeeni wacnaa ee cunno karinta ah oo la magac baxay cunadii wacneed anigu waa Sheef Cabdicasiis Dhicis caawa waxaan idin soo bandhigayaa sida aad u jeedaan habka wacan ee loo suubiyo steak nooca loo yaqaano steak alla Soomaali oo la casriyay iyo side dishes oo suubiyo salad waxa kaloo dusha laga dari doonaa tomato vinaigrette sauce oo aad iyo aad u habeeyay haddaba su-aashu waxa ay tahay tomato vinaigrette sauce wuxuu ka kooban yahay khal wuxuu ka kooban yahay capers wuxuu ka kooban yahay cashew nuts wuxuu ka kooban yahay musqaado sokore hal qaado malabe hal xabo basal kala gooyay laba xabo toone iyo yaanyo on gabal oo gasac ku jirto iyo waxaan kaloo ku darayaa mustard Dijon mustard oo ku darsan kara maadaama hadda aan haysan out of stock Dijon mustard aan waxaan ku darnayaa in yaro mustardkii caadiga ahaa waxaan kaloo aan ku darayaa musqaado ama ruux qaado waxa waajib si uu siiso flavor ama dhadhan Somalian style steak al Soomaali waxa la socda salad lettuce on habeen doono lagu cuni doono iyo waxaan u soo binayaa tomato vinaigrette sauce وآد يأدو معنا waxaan kaloo aan ku qurxinayaa dusha kaga darayaa looska nooca loo yaqaano cashew nuts waxaan suubinayaa tomato vinaigrette sauce waxaan isku darayaa laba qaado keberise yaanyo miro ayaan ku darayaa oo gasac ku jirta haddaba waxaa haboon haddaad heli kartid yaanyo fresh inaad ku darsatid laba xabo toone iyo kabsar caleen ayaan ku darayaa vinaigrette-ka sokorta waxay siinaysaa macaan meel dheer laga dhadhaminayo waxaan kaloo ku darayaa sokor malab iyo mustard sauce vinaigrette-ka noocan ah looska malabka mustardka kebriska wuxuu siinayaa dhadhan iyo macaan iyo dhanaan isku dheelitiran waxaan hadda ku darayaa looska nooca loo yaqaano cashew nuts dhowr xabo ayaan ku daray waxaan kaloo ku darayaa basal ayaan kula shiidanayaa waxaan ku darayaa khal ayaan ku darayaa habbakeeri khale intaas ayaan iskula shiidayaa si fiican ayaan iskula shiidayaa kadibna waxa aan ku darayaa saliidan si fiican kula shiidayaa vinaigrette-kii waa suubiyey in yaroo cusbaan hadda ayaan dusha kaga daray waan dhadhaminayaa aad iyo aad ayuu u macaan yahay steak oo aan cusbo iyo black pepper mariyey ayaan waxaan ku shiilayaa birtaawo basal barbarooni iyo yaanyo ayaan si fiican u shiilayaa steak-ga aad buu khafiif u yahay marka ma habboona in shiilitaanka laga badiyo dhinac walba waxa aan shiilayaa 1 minute basasha iyo barbarooniga si fiican baan u shiilayaa ilaa ay basasha ma aragtay dhacaankeeda ka baxo birtaawada waxaa ku soo haray dhacaankii steak-ga dhacaankii basasha marka waxa aan ku darayaa looska nooca loo yaqaano cashew nuts oo aan ku fry gareynayo for 1 minute hal xabo liime ayaan si isla eg u goostay liimada waxaa lagu cunayaa steak-ga midda kalena sixnigana way ii qurxinaysaa waxaan soo qaatay saxan dhexda waxaan kaga shubay ama aan ku daray saladkan dhexda dhigayaa steak-gii oo aan ma aragtay 6 gabal u gooyay ayaan saladka dusha ka saarayaa hadda waa qurxintii weeye iyo ma aragtay aan sixnigii aan buuxinayo basashii iyo barbaroonigii iyo yaanyadii aan shiilay ayaan waxaan dusha ka saarayaa steak-ga
waxaan kaloo dusha kaga sii darayaa kebriskii dhanaanaa si uu u siiyo dhadhan dhanaan ah. looska loo yaqaano nooca cashew nuts ayaan steega iyo kebriskii iyo saladkii dusha kaga darayaa. steegii waa dhameeyay, waa u jeedaan aad iyo aad buu u qurxoon yahay, wax kaloo u haray male. waxa kaliya u haray in aan ku daro waxa weeye sooska nooca vinaigrette-ka aan hore u suubsaday, tomato vinaigrette-kii hore u soo suubsaday ayaan dusha kaga darayaa ama kaga dirgareynayaa ama se kaga bilbilayaa, hadba sidaad u qaadatid. steak alla soomala waa dhameeyay, aad iyo aad buu u qurxoon yahay. presentationkiisii vinaigrette sooskii waa ku daray, wax walba waa complete buu u yahay. inta aan ku kulmi doono barnaamijkan barnaamij lamid ah, anigoo ah Sheef Cabdicasiis, waxaan idin leeyahay amaano Allah. week dambe waxa aan soo qaadanayaa barnaamijyo taxane oo cusub hadduu alla yiraahdo. marka week walba la socda new programs ayaad ka daawanaysaan meel walba aad joogtaan. sidaa iyo nabadgelyo.